kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaal hore oo Muqdisho ka soo saaray bayaan ku saabsan dastuurka la ansixiyay haddaba waa kuwee barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan 85 neef oo ariya oo ku dhintay beri ku dhufatay deegaanka Tulatula ee degmada Wajeer farmaajo oo dhaleeceeyay habka ansixinta dastuurka kana digay halis ka dhan ah midnimada dalka Hirshabelle oo ku tilmaantay ansixinta dastuurka fursad cusub oo dowladnimo waxaad kaloo barnaamijkeena ku maqli doontaan waqooyi bari oo guul ku tilmaantay dhameystirka dastuurka qodobadaas oo faahfaahsan ayaad Wajawa Media kaga bogan doontaan u diyaar garooba hay'adii oo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal asugin maanta na soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda waxaynu ku bilaabaynaa maanta wararkeena hogaamiyaal hore oo Muqdisho ka soo saaray bayaan ku saabsan dastuurka la ansixiyay haddaba waa kuwee mucaaradka garabka la heshiiyey dowladda oo soo dhaweeyay ansixinta dastuurka saddex siyaasi horey dalka uga soo qabtay xilal muhiim ah kana mid ah garabkii mucaaradka ee heshiiska la galay dowladda ayaa soo dhaweeyay ansixinta dhameystirka wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ee dalka iyagoo tilaabadan ku tilmaamay mid horumar u ah xoojinta dimuqraadiyadda iyo xasiloonida siyaasadeed war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen Muqdisho ayaa waxay ku hambaliyeen hogaamiyaasha kale ah Shariif Xasan Sheekh Aadan oo horey u soo noqday gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore iyo Daahir Maxamuud Geele oo horey u soo noqday wasiirkii warfaafinta waxay bogaadiyeen baarlamaanka federaalka iyo hay'adaha kale ee dowladda federaalka kuwaasi oo ansixiyay dhameystirka wax ka beddelka dastuurka sida lagu sheegay bayaanka tilaabadan waxay muujinaysaa biseel siyaasadeed iyo ixtiraam lagu qabo heshiisyadii qaran waxayna kor u qaadaysaa nidaam dimuqraadi ah oo ku dhisan wada tashi iyo isla xisaabtan waxaa sidoo kale lagu caddeeyay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya uu sii ahaan doono mid baarlamaan iyadoo madaxweynaha ay dooran doonaan labada gol ee baarlamaanka halkay lama huraan tahay in ra'iisul wasaaruhu helo kalsoonida baarlamaanku hogaamiyaashu waxay carabka ku adkeeyeen in dastuurku yahay dukumiinti la bedeli karo sida uu la jaanqaado xaaladaha isbedelaya iyo baahiyaha bulshada waxay sidoo kale ku baaqeen in dowladda federaalka ay sii wado wadatashiga qaran ee furan isla markaana la tashato mucaaradka iyo dhammaan dhinacyada siyaasadda si loo gaaro heshiis ballaaran oo ku saabsan qodobada u baahan dib u eegis dheeraad ah ugu dambeyn bayaanku wuxuu ku booriyey dhammaan xoogagga siyaasadeed inay horumariyaan danaha qaranka ka gudbaan khilaafaadka isla markaana ka shaqeeyaan xoojinta xasiloonida siyaasadeed midnimada dalka iyo hirgelinta dastuur si ballaaran loo aqbalo 85 neef oo ariya oo ku dhintay beri ku dhufatay deegaanka Tulatula ee degmada Wajeer ugu yaraan 85 neef oo ariya ayaa ku dhimatay kadib markii beri ku dhufatay deegaanka Tulatula oo ka tirsan degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya dadka deegaanka ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday kadib roob ka da'ay tuulada xilli ay xooluhu ku sugnaayeen goob ay isugu yimaadeen biriqda ayaa si lama filaan ah ugu dhacday halkaasi taasoo sababtay in ari badan uu isla goobta ku dhinto qoyskii lahaa xoolaha ayaa sheegay in si weyn uga murugsan yihiin khasaaraha soo gaaray maadaama xoolahaasi ay ahaayeen ilaha ugu weyn ay ku tiirsanaayeen noloshooda iyo dhaqaalahoodaba sidoo kale
sidoo kale 2 caruur ah oo ariga la joogay ayaa la sheegay in mid ka mid ah isbitaal la dhigay kadib markii uu si xoog leh uga naxay dhawaaqa biriqda. Odayaasha iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka ayaa la sheegay inay booqdeen goobta ay dhacdadu ka dhacday, ayagoo qoysasku dhibaatadu gaartay u muujiyay garab istaag iyo tacsi. Dhacdadan ayaa muujinaysa khatarta ay biriqdu xilliyada roobka ku hayso deegaanada baadiyaha, gaar ahaan meelaha ay xooluhu dhaqashadu tahay laf-dhabarta nolosha bulshadu. Farmaajo oo dhaleeceeyay habka ansixinta dastuurka kana digay halis ka dhan ah midnimada dalka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa cambaareeyay ansixinta baarlamaanka federaalk ee wax ka beddelka lagu sameeyey dastuurka, isagoo ka digay in tilaabadan ay khatar ku tahay midnimada qaranka. Farmaajo ayaa hadalkan ka jeediyey shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho, isagoo dhaleeceeyay waxa uu ku tilmaamay hanaanka wada-tashi la'aanta ah inta uu socday geedi socodka wax ka beddelka dastuurka. Dastuurku maaha waxay dad kooban leeyihiin, waa heshiis ay tahay inuu dadka Soomaaliyeed mideeyo ama kala qaybiyo, ayuu yidhi Farmaajo. Baarlamaanka federaalka ayaa ansixiyey wax ka beddelka dastuurka, taasi oo dalka ka saaraysa marxaladii ku meel gaarka ahayd. Hase yeeshee, Farmaajo ayaa muujiyey walaac ku saabsan in habka ansixinta uusan ahayn mid loo dhan yahay, isagoo si gaar ah farta uga fiiqay sida Somaliland, Puntland iyo Jubbaland aan lagala tashan. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku heshiiyaan hal dowlad oo hal nidaam ka hor inta aan loo gudbin dastuurka ugu dambeeya, ayuu carabka ku adkeeyey. Ansixinta wax ka beddelka dastuurka ayaa wajahaysa diidmo ka imaanaysa hogaamiyaal siyaasadeed iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka, taasoo sii kordhinayso xiisadda u dhexaysa dowladda dhexe iyo madaxda gobollada. Weli waxaad la socotaan wararkii Waajaba Media. Hirshabelle, dastuurkan wuxuu horseedayaa xasilooni iyo horumar. Dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku ansixisay dastuurka dalka, kaasoo meesha ka saarayo dastuurkii ku meel gaarka ee 2012. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Hirshabelle ayaa lagu sheegay in go'aankan uu soo afjarayo muddo dheer oo is-afgaranwaa iyo murano ku saabsan dastuurka dalka, isla markaana uu abuuri doono fursado cusub oo la xiriirta horumarka dalka iyo dhismaha dowladnimo hufan. Dowladda Hirshabelle ayaa ku tilmaantay ansixinta dastuurka guulo weyn uu horseedi doono Soomaaliya, xasilooni siyaasadeed, horumar dhaqaale iyo nidaam dowladnimo oo dhammaystiran. Bayaankan ayaa intaasi ku daray, tani waa guul weyn oo shacabka Soomaaliyeed u horseedaysa xasilooni siyaasadeed, horumar dhaqaale, hufnaan iyo nidaam dowladnimo oo dhammaystiran. Hirshabelle waxay tilmaantay in tilaabadan ay tahay mid muhiim u ah oo ku soo biirtay dadaalada qaran ee lagu dhisayo Soomaaliya, isla markaana ay dhammaan dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshadu heli doonaan fursado waaweyn oo loo dhan yahay. Ugu dambeyntii, dowlad goboleedka Waqooyi Bari oo guul ku tilmaamtay dhammaystirka dastuurka. Wasaaradda Cadaaladda, Arrimaha Diinta iyo Dastuurka ee dowlad goboleedka Waqooyi Bari ayaa dhammaystirka dastuurka Soomaaliya ku tilmaantay horumar weyn oo laga gaaray xoojinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda dalka, iyadoo labada gole ee baarlamaanka federaalka ugu hambaliyeysay dhammaystirka geedi socodka dastuurka Soomaaliya, kaas oo shalay lagu ansixiyey kulankii baarlamaanka federaalka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Cadaaladda ee Waqooyi Bari ayaa lagu sheegay in dastuurka Soomaaliya la dhammaystiray uu farayo wadooyin cusub oo kor u qaadaya awoodaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo loo eegayo sidii loo ilaalin lahaa nidaamka dowladnimo ee dalka. Waxa kale oo ay tilmaantay in dastuurku suurtagal ka dhigayo hirgelinta sharciyo iyo xeerar ku dhisan isla xisaabtan iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta. Dhammaystirka dastuurku wuxuu furo u yahay xoojinta nidaamka federaalka, kala codeynta awoodaha dowladeed, ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo dhismaha dowlad ku shaqeysa mabaadii sareynta sharciga iyo isla xisaabtanka, ayaa lagu yiri bayaanka. Dhammaystirka dastuurka ayaa sidoo kale la xiriira xoojinta wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, iyadoo wasaaraduhu muujisay inay arrintani fursad u tahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedyada, si ay u fuliyaan qorshayaal iyo mashaariic horumarineed oo la taaban karo. Wasaaradda Cadaaladda ee Waqooyi Bari ayaa ku boodisay dhammaan qaybaha bulshada, gaar ahaan dowlad goboleedyadu, inay kala qayb qaataan xoojinta nidaamka dastuuriga iyo wada shaqeynta u dhexeysa hay'adaha kala duwan ee dowladda si loo gaaro horumar waara oo dhammaystiran. Qodobkaas ayaa u dambeeyay wararkii aad kala socoteen Waajaba Media.
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe oo xiise leh akhyaaray nabadgelyo.